musharaxiinta golaha isbedel doonka koonfur galbeed ayaa soo saaray go'aan xasaasi ah oo ku saabsan doorashada la filayo inay dhacdo 5 bisha ee soo socota. musharaxiinta oo caawa shir jira isku qabtay magaalada Baydhabo ayaa sheegay inuu musharaxa koowaad uu u yahay golaha isbedel doonka koonfur galbeed Sheekh Mukhtaar Robow Abu Mansuur. golaha ayaa go'aankooda ku sheegay inuu imaaday kadib markii ay fiiriyeen rabitaanka shacabka koonfur galbeed sida ay hadalka u dhigeen iyo la tashiyo ay la sameeyeen odayaasha deegaankaasi. golaha isbedel doonka koonfur galbeed ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay inay faragelin ku hayso doorashada isla markaana ay macquul ahayn in laga shaqeeyo waxaan ahayn rabitaanka shacabka. golaha ayaa sheegay inuu musharaxa u yahay Robow Abu Mansuur oo ay ku sheegeen inuu yahay musharaxa ay rabaan shacabka koonfur galbeed. waxay tilmaameen inay ka tanaasuleen mowqifkoodii gaar ahaaneed isla markaana ay u tanaasuleen rabitaanka shacabka koonfur galbeed. isugu yimaadeen golaha isbedel doonka koonfur galbeed ayaa waxay falanqayn iyo qiimeyn dhab ah ku sameeyeen xaaladda murugsan ee amni, dhaqaale, siyaasad, bulsho ee ummadda koonfur galbeed waxayna soo saareen qodobada hoose. waxay hoosta ka xariiqeen xuquuqda dastuuriga ah ee dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya u siinayo ummadda reer koonfur galbeed inay maamul hoosaadkooda u madax bannaanaadaan isla markaana tahay mid lama taabtaan. labo, markay aad u qiimeeyeen faragelinta tooska ah ee dowladda federaalka Soomaaliya ku hayso nidaamka doorashada maamulka koonfur galbeed kuna doonayso inay ka hor timaado rabitaanka shacabka koonfur galbeed. saddex, markay tixgeliyeen rabitaanka shacabka iyo codsiyada kala duwan ee ka yimid odayaasha dhaqanka, bulshada rayidka, haweenka, dhalinyarada, ganacsatada, culamo-diinka iyo dhammaan waxgaradka koonfur galbeed Soomaaliya, waxay isla garteen si loo helo bulsho horumar leh inay muhiim tahay in la tixgeliyo rabitaanka shacabka koonfur galbeed lagana tanaasulo rabitaanka gaar ahaaneed. sidaa daraaddeed iyadoo la qiimeynayo duruufahaas aan kor u soo xusnay ayaa golaha isbedel doonka wuxuu go'aan ku gaaray inuu Sheekh Mukhtaar Robow Cali noqdo musharaxa golaha isbedel doonka koonfur galbeed. waxaan Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa inuu ku guuleeyo xilkan adag una fududeeyo. wabilaahi tawfiiq. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. musharaxiinta u tanaasulay Robow ayaa ah ilaa iyo 5 ka mid ah musharaxiinta isbedel doonka kuwaasi oo kala ah Maxamed Aadan Fargeeti oo ahaa wasiirkii hore ee maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya. 2, Injineer Saalax Sheekh Cismaan oo ahaa wasiirkii hore ee wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska Soomaaliya. 3, Xasan Macalin oo ahaa xildhibaan hore oo federaal ah. 4, Yuusuf Baadiyo oo isna ahaa xildhibaan hore oo federaal ah. 5, Xuseen Xasan Cabdi Kushuk oo isna ah siyaasi rugcada ah. tartanka doorashada koonfur galbeed ayaa hadda la aaminsan yahay inuu u dhaxeeyo Mukhtaar Robow Abu Mansuur iyo Cabdicasiis Lafta Gareen. halka aad warbixintaasi kala socoteen waa warbaahinta Gallery Media.